بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبشي ودن بيسي سنة كان لوضا كوني الله تنكا ديسمبر وشن إيه طبعا وماني سلاسة وحن تشوقنا هرقيسا لما انت فرصدو هاشينا عجلة دعوتو وانصوض السلامينا ساكا ورركي ووريه إذا عدو كل واقعنا نكاه الله وحيا هيد دولة فدرالكا سوماليا وعلاقاتكي وشرتي دالكا كينيا تدوم المود قدوه تصدح تلابو وأي دولة داسي قادي انتبا أب إسر أبترسيمو كل مرة هاد دبلوماسية عالمية الدنيا كوضا لقنطا أما كوضا نوشاي مع المكور أي سفير كيدي ويارتي سفيركي كينيا ودرتي دالكيسي إنو كل نوضو لبا عشا كدب أي دعوة قرتي إيقاد أي كاقاش كتونيس دولة كينيا ولا قيميي بيش اللباتين كيدا أي بلان لو قبت مقالة جبوتي إن دعوة دا لو سوق قادو ليسوي مادو مقالة جبوتي دراد أي مدحونا جمهورية سوماليلاند مدن مسبح عبد تكين يضو مدحوينه مرتقى علي مستر أوهورو كينياتا تبعدنا ساكا وحنو كوا بريساني يضو دولة فدرال في علاقات كي وشرتي دولة كينيا سببتنا أي تهي وحي مرتقى علي مسبح markaynu eegnana dhacdadan Uhuru Kenyatta de kuma soo toosin aroorun maalmihii dhaweyda deenu yiraahdo musabix halkan booqashaha ku yimaadeen laakiin tii markaynu eegno dhaqanka caalamiga ah diblomaasiga ee adduunyadu ku wada shaqaysato ay ku wada nooshay ku wada joogto hawlaha caynkani waa qaar muddo soo taxnaayo la diyaarinayay ما هو أحمد حوينياش وانت صوت وصانو هذا عمر وياد مركا هاوشن ميت كله قول ما هاي سافكرن واجا لحيا لا كينيا صوماليا صوماليا نوحي كبرتها طلابة أي قادو عودان وشرن ألف كوندي كتري يجني مرمسبحي تجي هذا شلي فرماتشي موسى تسوي شغله شوكتي وده شغله واحد بيعتي متشرين حالة عين كاس أي حمر كتهاجن واحد شراء إري سوماليات أو هذا قلين أنو إريجاس معنيات بنقولي هاي متكملة أو كيو عن وهر برتاي وحوا هايران تيدي يكونتنا دي markay dumarku isku dhaxkariska karinayaan ayaa hilibka la yar qaleeyayo waan garanayaa awlal baan ku garaadsaday feedhaha la jajabiyo dabeedna distii lagu rido xawaashiriyo saliideeriyo marar qaar kood soo baabahada lagu sheelo oo jagayacdahayo marka dambe bariiskoo qasaasilan ayaa lagu shubi jiray waxa loo jiray hilibka waa la qaleeyay caalimkii weynaa naxariistii jannaalaha siiyo حبد إبراهيم ولو يقاني دبندرن مركو علمي أوغادي وغاشي كشاكيني وكشاكين شري تباها الله وغارسة متكمدة ولو ريشري قلينتا وبعيدك أيام مدى حيدود كاسرية انت لغا سارة سانتا أيام دمير لدول ساري شري ساي أوغادو أمودو إنو بعيد كليه هاي ولا داقيو ويسكا عادي ويسكا دقن ninka gabraaranayana uu ku gaban jiray oo dabeedna markuu dhex galo uu ku gaarsin jiray qalayn baa la oran jiray waxa la oran jiray qalayn xaaladda maanta xamar ka taagan ayaa iska qalayntaas midnimadan ay carabka ka dhigilaayeen way qalaysantahay diblomaasiyadoodu way qalaysantahay Soomaalinimadoodu way qalaysantahay doorashooyinku way qalaysan yihiin ereyga xor iyo xalaal uu qalaysan yahay wuxuuba waa wax wada qalaysane
wax dhaba oo runa maaha waa diblomaasiyadda qalaysan waa midnimada qalaysan ee maran ee aan meel la jirin halkeebana loogu baaqayaa marka la leeyahay midnimada Soomaaliyeed halkeena loogu baaqayaa soo halka roob la isoo garawo joogo oo martiya oo la soo dhaweeyo airportka laga hortago la casuumo intaasoo neef loo qalay isagoo magaaladii jooga aanu ka qayb galin Soomaaliya soo dulqaadka dani maaha ka caynkaas kaga daba sii galbiyay ee airportka geeyay si aan bixiyay marka xaaladaas Soomaaliya ka taagan tahay maanta dhul Samareeb buu joogaa mar waa Samareeb bay dhaahdaan mar ma dhul Samareeb bay dhaahdaan eriga reeb iyo magaalada waxa isbadayna waa la garan laayay halkaas uu joogaa halkaana guul kala soo hoyan maayo waa dawlad goboleedkii labaad tii Shabeelle saasay u kala xayanaysaa Jowhar iyo Beledweyne u kala taagan tahay Jubaland lama hayo gedo iyo waxay u kala taagan tahay Kismaayo malaa wax maanta la hubo lafta gareen ayaa jiray sanadanihiisa ayuu ugu jiraa waxa caynkaas ayaa la oranayaa midnimo Soomaaliyeed waxa caynkaas ayaa la oranayaa doorasho xor ah oo xalaal ah waxa caynkaas ayaa la oranayaa waa dawlad Somaliland Kenya uma ay tagin baahi ay Kenya u qabto Somaliland waa xaqiiqo ka jirta geeskan Afrika oo dhaba oo la taaban karo Somaliland dalalka aanu dariska nahay igaad dalalka Afrika iyo adduunyaduba way ku qasban tahay inay la macaamisho waayo qayb baanu ka nahay nabadgelyadaanu qayb ka nahay isu gudubkaanu iyo isgaarsiintaanu qayb ka nahay xakamaynta cudurradaanu qayb ka nahay oo waliba maanta uu COVID jiro waaqica dhabta ah ee geeska Afrika ka jira ee loo yacdo baasaboorka lagu galo ee lagaga soo baxo ee wajaale lagu galo ee lagaga soo baxo waa inta noogu dhaweyn xuduudda la leenahay ee aanan dab iyo wax qarxa halkan ka dhoofinin oo aanan dariskayga ula tagin oo xeebtaydu nabad tahay oo burcad lahayn burcad badeed lahayn waaqicaasaanu nahayo adduunyadu way ku qasbantahay inay nala macaamisho annaguna waan ku qasbanahay inaanu u hogaansano shuruucda caalamiga Kenya dana badan baa halka yaala shaqaalaha halka shaqeeya miidaanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo adeegga bulshada ku jira waa dad Kenyaana hadday sidaa uga shaqeystaan halkan oo hay'adaha caalamiga u shaqeeyaan oo ay madaarista iyo jaamacadaha dadku gaarka u leeyihiin ka shaqeeyaan oo ay tirada inta la ku joogaan intaasi waxbay goysaa inta anaguna Kenya waxbaanu kaga rabnaa annagu Kenya uma tagno lama macaamilo adduunka xumeeyo walaalihiina Soomaaliyeed waayo xumaanabay nagama dhaxayso waxaan nagu haystaa waxa weeye gooni isu taag iyo way goosteen cid aliyaala cid aanu ka goosanayna ma jirtay bari hore ayaa nala gooyay oo bendoodu 180 Hargeysa ku bilaabantay 280 ku bilaabantay 190 baanu gobolada waqooyi xoreynay haddaanan gaar isu taagin oo aanay guurtadeedii burca ku shirtay sidaan sameeynin qaska iyo qalaanqalka xamar ka taagan ayaanu maantana ka mid ahaan lahayn dadkayguna may karayn 10 sanadood hore ay soo dagaalameen ilaa 190 ilaa 180 soddon sanadood ku dara waxba nagama soo hadhin dagaalku mar buu haboonaayo waqtiyadii 80nadii ayuu haboonaa waqti maxamed siyaad barre tagay islaaya aqli maaha horta aqliga aanu ku maqanahay waa kaasoo badbaadada dadkayga iyo dalkayga Kenya danahaas naga dhaxeeya annaguna danbaan ka leenay iyaduna danbay leedahay Soomaali ku xumeeya maaha Soomaali ku waxyeeleeya maaha
Soomaali annaga uga damqasho badan kuwa xamar joogay dawladda isaga dhigaya bal waxa ka warantaan aqliga oranaya diblomaasiyiinta 7 maalmood kaga baxa xamar iyadoo ubucdooda iyo calooshooda ay dhex fadhiyaan taangiyadii iyo madaaficdii Kenya waa aqliga weey reer Soomaaliland baa gini tagay cilaaqaadkan u jarnay waxaasi wax soconaya ma aha midnimaduna waa taa qalaysan dawladnimaduna waa taa qalaysan waa taa sarriftay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee labada gobol ee isu tagay ahayd mid sidaas sirsirka uga dhigtay ee u sarriftay weey waxa la yaalo waxa naga nagu yeelayaa Soomaaliland hadaan nahay cilaaqaad la jaro iyo cilaaqaad dad loogu hanjabo ma aha ilaahay waxaanu ka baryaynaa inuu dadka Soomaaliyeed bogooda burcad isu mariyo inuu dadka Soomaaliyeed tuso dawladda federaalka waxa ku habooneed inay halkan Hargeysa ku yeelato wakiilo Hargeysana ay xamar wakiil ku yeelato la isxaq dhowro la is ixtiraamo waxaan moodeynay inuu dagaal dhacay oo dagaal weyn dhacay oo la isbartay oo waxyeeladiisa iyo dhibaatadiisa la ogaaday oo la kala badbaadayo bal ninka ay aqligiisa maanta la tahay haddana mar labaad ayaa tiyo kala yeeli kartaa oo nin naftiisa been ugu sheekeynay hadalka waxaan ku soo ururinayaa annagu waanu soconaynaa meeshaan doonaan tagaynaa cidaanu doonaan la xiriireynaa cid aliyaale cidii dan laga rabo waanu la xiriireynaa annaguna dan kale ayaanu ka leenahay dantayadana xamar lagama yeedhiyo xamarna ma go'aamiso xamar malaa waxa ku haboon in gubtaa way hoostaa laaye inay inteeda ka shaqayso oo ay Soomaaliland iska ilowdo waxa la yaalo waraaqo maanta gacmaha ugu jira farmaajo iyo dawladdiisa ku meel gaarka dawladda federaalka ma jiraan way ninkaas oo arkaysaan oo yeekayaashii iyo rankii iyo baashayaashii iyo qulaamadii iyo raani wax waliba waa ka maqayn waxa ay tuurtuuraysaa ay kolba keenay wajiga kaga dhufanaysaa waa lixda oo meel aliyaana meel u gaadhaana ma jiro haday ugu badato waa 7 biigaasa gacanta ugu jira waayaha jira Soomaaliland waa cadceeda ka ifaysa geeska Afrika waa waaqica dhabtay jira mirahan beeranay ugu badan ee imika baxay ee aan mirahoodii goosanayno nabadda kamida ee adduunyada dhan gaarsiinayno idinka ugu xiga idinka u baahan oo aan u baahnayna meel kale u doonataan halkan u soo doonataan oo tiraahdaan sideeba dadkiina ku nabadaysanoo sideeba ku degantiino madaxweynihiina madaxtooyada intu ka rooxo si lugeynaya aqalkiisii u qada tagaya sideeba u suurtoodayna taan weydiisaan baa marka hadalka waxa kaga baxaya annagu aayahayga gacantaan ku haysanaa dalkayaga iyo dadkayaga annaga ka talina mid maydhaaman maaha mid qalaysan maaha nabad waarto oo dhaba ayaa halka ka jirta oo ku timid niyad samida iyo isuhilowga iyo saamaxaada dadka dhexdiisa dadka dhex martay waxaanu leenahay walaalaha Soomaaliyeed waxa la yaalo waxaanu u qabnaa ma jirto walaalihii jira noqda annaguna walaalihii jiraan noqonaynaa dawladda wax waliba u qalaysan yihiin yaani dadka isku dirin sida isugu dirtay kuwa ay gacanta ku hayso ama ay u sheeganayso madaxtinimada waa taasoo arkaysaano shalay khayr aa joogay maantana roob la jooga tabaadada khayrkoodii iyo roobkoodii waa ducayn ka noqday waxa la yaalo wax ka soo naasacadi ma jiraan waan u soo ducaynaa dadka Soomaaliyeed annaguna ayahay gacantaan ku haysanaa cid aliyaala cid naga qaadi karta iyo cid meel la geyn kartaana ma jirto cid kastoo dan naga gashan waanu tageynaa cid kastoo dan naga laana waanu wada hadlaynaa waxaan ku soo ururinayaa tuduc ku jiray maansadii daadwararaac in xariistii jannaalahaas iyo cabdi iidaan faarax waxaan malaynayaa bishii March 3 1900
iyo 80kii daadwarac tudca ku jiray wuxuu ahaa adiguna dameerow dawankaaga qaado higso faraska doolaal daba soco magaadhide intaasaan kaga baxayaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.